habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka qodobadan oo caawa ku soo qaadi doono waxa kamid ah maxaa maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee Villa Hargeysa maxay ahayd khudbadii madaxweynaha Soomaaliya uu sida gaarka ugu door xulay saddex garab oo mucaarada waxa rabaa inaan barnaamijkan idin kula wadaago madaxweynaha Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u furay kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka Soomaaliya ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan halka sano ee dheeriga ee xukuumaddiisu ay haysato haddaba maxaa kamid ah hadaladii ugu muhiimsanaa ee madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta ugu door xulay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka muxuu ka yiri arinta Puntland wararkii ugu dambeeyay ayaynu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawo doontaan mucaaradka Soomaaliya oo kulan degdeg ah hadda kale talaabadii uu maanta u qaaday madaxweynaha Soomaaliya haddaba waxaad ila wadaagi doonaa faahfaahin ku aadan kulanka mucaaradka ee caawa ay leeyihiin iyo waxyaabaha looga hadlayo oo aanu dul istaagi doono Puntland waxay maanta u dabaaldegtay 28 sano oo maamulkaasi uu jirsaday haddaba waxaad ila wadaagi doonaa dhoolatuskii la yaabka lahaa ee maanta Puntland ay soo bandhigtay iyo warbixin ku aadan waxay ka dhigan tahay 28 sano jirsiga maamulka Puntland ee mar walba khilaafaadka u kala dhaxeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya warkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybtan saddexdan qodob ayaanu caawa ku jeexjeexi doonaa haddii alla weyne uu qadaro soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu soo bir muuqaalka like sar aragtida waxaan dhisaysan ugu leeb qaybta hoose faalada dadweynaha aynu ku bilaawno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya maanta waxa uu qaaday tallaabo kale oo qaracan ku sii noqotay siyaasiyiinta mucaaradka kadib markii uu maanta si rasmi ah u furay kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kulankii maanta madaxweynuhu waxa uu helay kooram ku filan kuwaasi oo sii wadi kara howlaha baarlamaanka madaxweynuhu waxa halkaas ku soo bandhigay dhoolatus aad u culus iyadoo uu jeediyay khudbad qaadatay wax ka badan 28 daqiiqo waxaana intii uu socotay madaxweynuhu khudbadiisu uu ka hadlay dhowr arrimood laakiin waxaynu ka soo xulan karnaa arrimaha la xiriira ka hadalka xaaladiisa siyaasadda iyo sidoo kale mudaxileedka dawladdiisa oo uu madaxweynuhu si cad u sheegay in hal sano baarlamaanku ay haystaan oo aysan walwalin madaxweynuhu waxa uu yiri kala fadhigan marka uu dhamaado waxa inoo harsan kala fadhi kale baarlamaanka labadiisa kala fadhi ayuu qaadan doonaa taasi oo u dhiganta in baarlamaanku uu sii shaqeyn doono sanadka dheeriya oo aanay ka walwalin khilaafaadka siyaasadeed iyo hubanti la'aanta la sheegayo inay dalku ka jirto madaxweynuhu mar uu ka hadlayay ragga mucaaradka isku sheegay sida isagu yiri weerar afka ayuu ku qaaday waxaana uu ku eedeeyay inay u shaqeeyaan dawlado shisheeye oo ay ka naxaan marka Soomaaliya ay horumar gaarto madaxweynuhu waxa uu si toos ah u weeraray garabyo mucaarada kuwaas oo saddex qaybood ah qayb waa qaybta uu hogaaminayo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo waxa uu yiri ama noqo madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd ama si kala daan u dhigno madaxweynuhu waxa uu yiri ama dheh madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd ama madaxweynihii Soomaaliya oo ula jeeday madaxweynihii isaga xil ku wareejiyay ee Farmaajo ama noqo wasiir hore waa kooxda ku shaqeysata sida madaxweynuhu uu hadalkiisa laga dareemi karo darajada waxaan soo noqday wasiir hore iyo ra'iisul wasaare hore saddexdaasi daraf ba noqo waxaan idinkugu baaqayaa buu yiri inaad ka shaqeysaan danta qaranka oo aadan danta qaranka aadan ka dhax arkin Soomaaliya ayaa dumayso oo ku meel gaarka ayaa dib loogu celinayaa dawladda Soomaaliyeed marka madaxweynuhu si toos ayuu raggan runta ugu sheegay laakiin arinta cajiibkeed waxay ahayd in madaxweynuhu raggii shalay isaga la joogay hotelka Jazeera uu ku tilmaamay kuwa u shaqeeyo ajaanib oo ka shaqeeya danaha dawladda shisheeye rabo in Soomaaliya cunaqabateeta lagu soo celiyo rabo in Soomaaliya deemihii laga cafiyay dib loogu soo celiyo mar kale doonayo in Soomaaliya aysan wax horumar gaarin hadaladaasi ma aha kuwa aan anigu dhahayo ee waa wixii maanta madaxweynaha Soomaaliya uu ka yiri furitaanka kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka Soomaaliya marka hadaladiisa intaas ayaa ugu muhiimsaneed inuu cadeeyay in hal sano dawladdiisu ay haysato baarlamaanku uusan arintaasi ka walwalin si shaqeeyo mucaaradka ugu tilmaamay kuwa ajaanib u shaqeeyo iyo arrimaha kale oo uu ka hadlay si guud xaaladda dalka gaar ahaan doorashadii dawladdiisu ay qabatay uu bogaadiyay ayaa ugu muhiimsanaa hadalka madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxa jirta arrin cajiib ah madaxweynuhu markuu maanta talaabadan qaaday oo mucaaradka
markaasi sidaas u weeraray caawa mucaaradka shir degdeg ah ay hadda ku leeyihiin hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho shirkooda waxaa looga hadlayaa laba qodob oo muhiim ah labadaas qodob oo kala ah waxyaabihii ka soo baxay shirkii Kampala iyo sidoo kale arinta ku aadan furitaanka kala fadhiga baarlamaanka mucaaradka sidaan ognahay waxa ay u haystaan in dawladda madaxweynteedu uu dhamaaday 14 Abriil uu ku ekaa shaqada baarlamaanka sidoo kale waxay ka soo horjeedaan in kala fadhiga baarlamaanka maanta dib loo furo iyo hadaladii madaxweynaha Soomaaliya maanta u jeediyay dhamaantood ayaa ay ragga mucaaradku ay ka soo horjeedaan marka waxa la qorsheenayaa inay ka jawaabaan hadaladii maanta mucaaradku ugu darxulay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirkooda waa shir degdeg hadda ayuu socdaa wixii ka soo kordhase indhaha ayaynu ku heen doonaa oo waxa noqon doontaan kuwa ugu horeeyo hela laakiin markaan aan fiirino falanqaynta ku aadan labadan qodob aan idin la wadaagay mucaaradka Soomaaliya dadka ka falanqooda arrimaha siyaasadda waxa ay leeyihiin waxa ay ku jiraan wajigabax aad u xoogan iyadoo oo madaxweynuhu dhibco siyaasadeed uu ka helay 48 saac ee la soo dhaafay ragga siyaasiyiinta mucaaradka mid waxay tahay shirkii magaalada Kampala waxa ay mucaaradku ka doonayeen in ay ka soo baxaan go'aamo ay qayb ay ka tahay in Soomaaliya dib loogu celiyo nidaamkii ku meel gaarka ah sida codsigoodii toddobaadkii hore ku jirtay oo ay u direen qaramada midoobay iyo sidoo kale dalalka ciidamada ku deeqa Soomaaliya gaar ahaan shirka magaalada Kampala marka waxa leeyahay ragga mucaaradka taasi waxay ku noqotay darbaxa kul dhinaca kale mucaaradku waxay indhaha ku hayeen furitaanka kala fadhiga baarlamaanka oo ay u arkayeen in madaxweynuhu uusan heli doonin qorsho oo uu baarlamaanka kala fadhigan uu ku furo kuna sii shaqaysiyo maadaama cadays dhan walba madaxweynaha dawladdiisu ay saaran tahay laakiin madaxweyne Xasan Maxamuud ayaanan mucaaradka u joojin oo kulankii baarlamaanka maanta waa uu furmay iyada oo isla kulankaasi looga darxulay ragga mucaaradka dadka siyaasadda ka farqooda waxay leeyihiin mucaaradka kalkan madaxweynuhu dhibco siyaasadeed ayaa uu ka tirsaday laakiin waxa la eegayaa maxay noqon doontaa weerar celinta mucaaradka iyo kulanka ay caawimad leeyihiin indhaha ayaa lagu hayaa artayda hoos ayaa noogu reeb kartaa marka halkaas kaga gudubno dhinaca kale Puntland waxa ay u dabaaldegtay 28 sano guridii ka soo wareegatay aas-aaska maamulkaas waxa maanta la soo bandhigay dhoolatuskii ugu weynaa iyada oo ciidamo aad u tiro badan oo hub iyo gadiid dagaalba sita Puntland ay soo bandhigtay waxaana ciidankan oo aad muuqaalka ka arki karto ay soo bandhigeen awoodooda gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan ayaa ay 28 sano kadib Puntland ay soo bandhigtay laakiin maamulkaas 28 sano jirsaday waxa muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ay isku hayeen dawladda federaalka Soomaaliya qodobo maamulkan dastuurkiisa u dhigayo iyo midka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iska hor imaaday iyada oo khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya ay saameynin dabaaldega dadka reer Puntland ay u dabaaldegayaan 28 sano oo dowlad goboleedkaasi uu dhisan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa si isku mid ah ugu hambaliyay dadka reer Puntland iyo sidoo kale maalinta weyn oo ay u dabaaldegayaan 1 Agoosto oo ku beegan markii maamulkan dhidibada loo taagay haddaba markaad fiiriso maamulka Soomaaliyeed ee Puntland dabaaldegiisa waxa dhinaca kale loo arki karaa in Soomaalidu aysan cashiro ka baran markaad fiiriso maamulada u dhisan oo mar walba khilaafaad ragaadiyaan iyaga iyo dawladda dhexe Puntland oo markaasi lagu magacaabo hooyada federaalka haddii hadda oo 28 sano jirto ay dawladda federaalka iyo maamulkaasi ay isla jaan qaadi laayeen dadka siyaasadda ka falqooda waxay leeyihiin maamul goboleedyada kale ee hadda urdunka ah ee aanan gaarin marka la fiiriyo heerka Puntland ay taagan tahay in aan laga dhaxli doonin marka la fiiriyo wax ka duwan Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya xilligan isaasiga ka dhaxay taasi oo mar walba salka ku hayso maamulkan oo talaabo hore u sii qaado waxa ay mar walba marka la fiiriyo maamuladu markay talaabo hore u qaadaan dadka siyaasadda ka falqooda waxay aaminsan yihiin inay keento in ay isku darmaan awoodaha ay leeyihiin iyo sidoo kale awoodihii dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo haddana la leeyahay 28 sano kadib maamulka Puntland oo dabaaldegayo una dabaaldegay 28 sano guridii ka soo wareegtay asaaska maamulkaasi dadka Soomaaliyeed ma haystaan awood maamul iyo mid heer gobol iyo mid heer federaal oo kala saaran gaar ahaan marka lagu dhiso aragtida maamulkan haddaba adiga aragtidaada markaad fiiriso maamul goboleedyada tis qaaday oo ay Puntland ugu horeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya
oo ay awoodahooda mararku qaar iska hor yimaadaan oo ay madaxa iskula jiraan mararku qaar ay sababto in ay siyaabooyin kala duwan xiriiro ay ula yeeshaan dowladda gobolka ah aragtidaada ku aadan hoos ayaad nagu reebi kartaa miyaa la oran karaa mashaqadu ma waxa ay ka jirtaa ama miyaa la oran karaa mashaqadu waxay ka jirtaa maamuladan sii kordhayo marka la fiiriyo awoodahooda maamul mise waxay ka jirtaa dowladda Soomaaliya oo aan haynin xasilooni siyaasadeed oo ay isugu heeso maamulka dowladda federaalka iyo midka dowladaha xubnaha ka hadaba aragtida ku aadan hoos ayaa nagu reebi kartaa waa falcelintii ka dhalatay maamulkaas 28 sano guridii ka soo wareegatay asaaskiisa u dabaaldegayo ayaa dadka siyaasadda naqdiya waxa ay soo qaadanayaan dhacdooyinka la xiriira ilaa hadda waxa siyaasadda Soomaaliya ay ka faa'iiday in maamul goboleedyadii sameysmay ay tareen dowladnimada Soomaaliya inkastoo Puntland lagu amaano doorkii ay ka qaadatay dhismaha dowladda federaalka Soomaaliya dar waxa la leeyahay mar walba oo khilaaf dowladda federaalka iyo maamul goboleed uu jiro isku qasiyihiin awoodihii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda goboleedyada dadka siyaasadda falanqeeya ayaa leh waxa tani sabab u ah marka ka dambaysa maamulka markuu madaxa u sii qaado kor waxa timaada in ay isku awood noqdaan dowladii dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda goboleedka oo la kala garan waayo cidda awoodaha markaasi saxda ah iska leh yani dastuuradooda iyo kuwa markaasi dastuuradooda midka federaalka ayaa isku qasma inkastoo dastuurkii la isku raacsanaa dowladdu wax ka bedel ay ku sameysay marka aragtida ku aadan hoos ayaa nagu reebi kartaa sida qaar kamid ah siyaasiyiintu ay u naqdiyeen dooda ku aadan dabaaldeg 28 sano oo Puntland ay u dabaaldegayso iyo waxa laga dhaxlay maamul goboleedyada dalka ka jira adiga aragtida oo madax banaan tahay hoos ayaa nagu reebi kartaa waa tahay gudaan barnaamijkeena caawa inta ayaan jeclaan inaan ku soo meerinteen ku kulmi doono mid la'aan barnaamijkan waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo warsan ada sharci iyo hanaan doorasho oo dimuqraadi ah hase yeeshee taariikhdu waxay ina bartay in mar kasta oo Soomaaliya tallaabo hore u qaado ay jiraan xoogag isku dayaya inay dib u celiyaan Soomaalida maxaa la dhihi jiray waayeelku maalintii u cabsadaa caruurtana habeenkii cabsadaa waxaa hadda qarniga 12 waxaa jiro dad aan cabsanayn oo dhiiran colaadda aan cabsanayn nabadda markay timaadaan cabsanaya horumarka ka cabsanaya talada waa la wada leeyahay ka cabsanaya danta shacabkaa sidaan u taalee taada meel dhow awoodeeda aan kari karin waxaa jira kuwo aan rumaysnayn dowladnimadeena laana ninkii sharciga aan rumaysnayn dowladnimada ma rumaysna ninkii sharciga aan ixtiraamaynin dowladnimada ma ixtiraamayo kuwo aan rumaysnayn hay-adaha qaran waxaa jira kuwo aan rumaysnayn in shacabka Soomaaliyeed ay tashadaan aayahooda iyo hay-adahooda dastuuriga aan u tashadaan waxaa jira kuwo doonaya in Soomaaliya ay weligeed ku sii jirto muran kala qaybsanaan hubinti la'aan waxaa jira kuwo u arka xasilooni darrada Soomaaliya inay tahay fursad ay ku gaaraan dana siyaasadeed ama dana dhaqaale walaalayaal marqaatiyaad ka tihiin mar kasta oo Soomaaliya caqabad ay ka gudbi tagtaba dadaa jira niman odayaala inta isku yimaado officially warqad rasmi ah qora cunaqabateynta hana laga qaado dowladda dhan markay u qaylinayso kuwa qoraya yaana laga qaado Soomaaliyaana yaana laga qaado hubaan soo gardanayna waa islaynayna waa isdilayna yaana laga qaado deynta hana laga cafi markaan la kuwa dhaamaya yaana laga cafin dowladdan oo xasan sheekh madaxda yahay deyn horna ay dalka gelinaysa deynta hadda lagu leeyahay saddex jubaarkeedan deymoobayna yaana laga cafin يعني مالين والبا مركان هور u dhaqaaq tagnaba nin mas'uul sheeganayo waxa fiican waxa yahay gabdhaha uu maayo wali ragga odayaal oo mas'uuliyiin sheeganaya in ay maalin walba Soomaaliya jid ku taagnaadaan inta looma dhaqaaqay
oo wax dhan oo ka gudbila shakhsi qof ay ka gudbilaayeen isagu waa qof institution ma rabo waxa uu ku dhow haystaa waa qof madaxweyne wasiir xildhibaan gudoomiye baarlamaan gudoomiye dowlad goboleed qof uu haystaa qof uu ku dhegan yahay war siyaasadda Soomaaliya qofaynta aan ka bixin waa loo dhisaa soo lahaa jiray dagaal oogaa la dhihi jiray hogaamiye kooxeed aan soo lahaa jiray hogaamiye kooxeed inay institutions ay lahaayeen ayaa garanaya nidaam ay lahaayeen oo degan ayaa garanaya maanta in qof yiraa marka aniga waay sharciyad ma leh inuu samaysto ma ogola xataa heshiis beenbeenay dhexdooda inay samaystaan ma ogola sidee shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay arkaan mucaarad waa run siyaasaddu waa in mucaarad way yeelanay mucaaradka laakiin wuxuu xaq u leeyihiin inay arkaan mucaarad xambaarsan aragtiyo siyaasadeed oo ka duwan midda markaas uu mucaaradayo middaana jirto waa xun tahay taanaan qabaa aniga oo ka fiican halayla fiiriyo lagala doodo la qaato sidaadaba haddii aad maxaan ku iraahdaye aad ra'yiga kale aadan qaadan karin kaadana la qaadan maayo waa inaad aqbali kartaa waad ogtihiin halkan maxaan ku iraahdaye ra'yigii aan keennay annaga oo nala qumanay dalku madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hala doorto aan u guurno meeshaas hybridkan aan la garanayn aan ka guurno si un baa lasuu qanciyey waa dad baa yiri war ma fiicna naga dhaaf maya sidaan markii dib waxay naga gaartay saan kan haddaan iska dhaafno ma la wada jiraya haa waa la wada jiraya bes waa dhaafna hala yeelo markii aan saas ahnayna qaaraa yiri maya taas ma ahayn haddana gadaal usii noqda haddana ma jiro qof xaq u leh inuu dhaawaco hay-adaha dastuuriga ah si uu u gaaro dan siyaasadeed oo kooban ma jiro qof xaq u leh inuu shacabka Soomaaliyeed u horseedo qalalaase joogto ah isaga oo adeegsanaya been abuur marin habaabin ama faragelin shisheeye gabaal ku wata oo imaanaya waa nasiib daro rag odayaala inay jaakadaha iyo taayada u xirtaan inay dana ajnabi Soomaaliya ka fuliyaan oo aan dan adduunyada dhan danaha waa isku dhex jiraan dana ajnabi la'aan ma lihi laakiin Soomaaliya dan u tahay dan Soomaaliyeed ku jirtaa ajnabiga tiisa mid noo barbar taallaa oo tan haddoo asigoo la annaguna tanaan ka helaynaaye tiisa aan ogolaano si teena ay noogu marta ma leenahay mase danta orod calqarad soo sameeya dalka soo dumi kan soo dumi waa ku taageeraynaa siyaasiyiin adigaan ku taageeraynaa waay waxaan leeyahay kuwa doonaya inay shacabka niyad jebiyaan xukun dooniddu yaana idin gaarsiinin inaad Soomaaliya ku sifaysaan inay tahay dad liita oo go-aan gaari karin waxba aan qabsan karin meel aan mari karin mar walba inaad ku sifayso waa liidanaa hubka ma ilaasho karo deynta iskama waxay karo ma maamulo karno lacagteena ma ka dhici karno siyaasaddeena gudaheena kuma heshiin karno ee hanaloo yeero dibadda hanalaga waco war hanala iyo maalin walba inaan ku hadaaqno sax maaha maanta way ka wanaagsan tahay midii aad waxaan leeyahay nimanka odayaasha siyaasiyiinta ah sheeganaya inay mucaarad yihiin ma marka qaarkoodna diida mucaarad kale inuu jiro xataa war dalkan dad badan jooga ra'yiga la wada leeyahay adiga kaligaa ma ayd maya mucaarad annaga leh abis dowladda annaga leh nala hadli kartaa cid kale lama hadli karto war saan si ma aha waxaan leeyahay dadkeenu ha isweydiiyaan farqiga u dhexeeya Soomaaliyadii shalay ee odayaasha maanta mucaaradka ahi ay xukumayeen iyo Soomaalida maanta ha la isku fiiriyo dib loo eego maanta waxaan dib u soo ceshanaynaa haybadii dowladnimada amnigii dimuqraadiyaddii iyo sumcaddii caalamiga caalamka ku leh taariikh wanaagsan ayaan qoraynaa maanta nimankaas odayaasha waxaan leeyahay Soomaaliyada maanta ma aha Soomaaliya shalay ama aad madaxweynaha ka ahayd ku meel gaarka ah ama aad ka ahayd madaxweynaha ama aad ka ahayd wasiirka ama aad ka ahayd ra'iisul wasaaraha maanta ma aha Soomaaliya maanta Soomaaliyada taagan waa ka duwan tahay Soomaaliyadaas maanta Soomaaliyada ma aha
aan joognaa maaha soomaaliyadii siyaasiyiinta inta guryaha loogu dhaco dadkooda guryaha ku jira lagu laayo ee haddana marka la laayo dadkooda meydka laga dhowra loo diiday dulka lagu aasay ma aha maanta qof kastaa afkiisa xor u yahay jasiiro tag hotel kala tag barxadda soo istaag intaba aadan amniga shacabka aadan wax u dhimaynin oo aadan qora la cararaynin xoraad tahay horena waa u sheegnay maantana ku celinaya xildhibaanada sharaftalna inay ogaadaan aan rabo dhammaanbaxaa furan isu imaadanaa furan talaa furan hadalaa furan hadal qof uu ka xanaaqo oo ma ka caroon maxaa ugu daran midka asaga lagu caayo soo maaha maalin kastaa jidka naloo taagan yahay wax aan muxuu ahay ka waxaynayna ma laha laakiin qorayaan soo qaadanayaa dadkaan khalqal gelinaynaa waa ereynaa dadkaan qaxinaynaa waa muujinaynaa inaan maxaan ku idhahdaay sharcigu awoodda qoray qaadashada iyo haddiiba waxa lagu fulinayo awoodda qoray wax ku fulinta sharciga dowladdu siiye bas sharcigaana tilmaamaya dowladda lafteedu sida ay rabta maaha sida ay u dhaqan galayso waana iska ilaalinaa inaanan loo baahan marna in aanan siyaasadda aanay noqonin mid qoray daba socdo ayaan dhaweyta maalin weyd ka hadlayaan arkay masawirka xasan shaqo lasoo qalqalluuxiyo qorda mashaaraa lagu ilaalinaya dembiyadaas ku dhegso laga fuji maayo xataa xasan shaqo qalqalloocan dembigaas ku dhegso haddaan doonto laga fujiyo daaya galdhimaya xataa war waxaan rabnaa dadkeenna muddo dheera afka laga hay maalin dictator military iyo waxay afka ka hayaan maalin oo warlord afka ka hayo maalin ay argagixis afka ka hayso dadkeenna afkiisu waa furan yahay laakiin xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa haddaad hadlayso dheh wax wanaagsan oo tira haddaadan haynina iska aamus laakiin jidka soo istaag fawaaxishta aadda muxuu ahay ka socoto internetka iyo meelaha qaarkood maarata waxaan rabaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan xoogaga siyaasadeed ee dalka in ay ku tartamaan aragti barnaamij siyaasadeed oo qoran oo dadka soomaaliyeed akhrin karaan arki karaan waxaan rabaa in ay ku tartamaan ra'yi cusub ra'yi ka duwan midka annaga dowladda aan ahayn qabno waxaa u furan ra'yiga dowladda inay taageeraan ay yidhaahdeen kan waa fiican yahay markaana intaa la wado waxaa u furan inay yidhahdaan dowladda intaana waa ku taageersanahay intaana waa ku diidanahay waxaa u furan inay yidhahdaan waxa dowladdu ay waddo dhan waa diidanahay kanaan rabnaa bedelkiisa in maxaan ku raha lagu bedelo laakiin waxa ka soo haraaya waxa waaye waa wax aad iyo aad u dhib badan waxaan leeyahay ha ku tartamina curyaaminta hay-adaha qaranka ha ku tartamina burburinta kalsoonida shacabka ha ku tartamina marin habaabinta bulshada iyo u adeegidda yani dana shisheeye oo aan mar walba sheegin qaran kasta oo guulaysta wuxuu leeyahay muxaafid iyo mucaarad laakiin waxaa mideeya waa hal mabda in soomaaliya ay ka weyn tahay qof kasta xisbi kasta iyo dana kastoo gaar ah waxaa ka weyn soomaaliya mabda'aasi hana mideeyo markaan saas soomaaliya u weynayno waxaan go'aansanay wixii soomaaliya anfacaya inaan ka shaqayno wixii soomaaliya aan anfacayna cid kastoo kale ay anfacayaan aan dhahna raalli ahaada mudanayaal iyo marwooye inta aanan soo gunaanadin khudbadayda waxaan idinka mahad celinayaa shaqadii baaxadda lahayd ee aad qabateen 7 kalfadhi ee kalfadhigan ka horreeyey waxaan idinka mahad celinayaa dulqaadkiinnii waxaan idinka mahad celinayaa dadaalkiinnii waxaan idinka mahad celinayaa maalmo badan oo aad u hurteen gudashada waajibaadkiina qaran wakhti badan iyo duruufo adag iyo dana aad lahaydeen oo aad ka joogteen ama aad ka hakateen waxaan idinka mahad celinayaa doodihii adkaa ee aad isku dulqaadateen isdhegaysateen markii dambena aad go'aamiseen waxaan idinka mahad celinayaa inaad mar kasta ilaaliseen in go'aanka ugu dambaysta ah lagu gaaro gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ugu dambayntii waxaan alla subxaanahu wa tacaala ka baryayaa in uu guud ahaan inugu garab galo gudashada waajibkeenna inuu xoojiyo midnimada ummadda soomaaliyeed in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto inuuna waafajiyo ilaahay cadaalad
wadajir horumar iyo dowladnimo waarta waxaan idinku boorinayaa inaad si wadaan mas'uuliyadda weyn ee aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed kana dhigtaan kalfadhiga sideedaad iyo kuwa idin harsanba kuwa lagu xasuusto go'aanada dhaxalgalka ah ee sharci tayo leh iyo xaqiijinta haddaba oo fursadda ugu dambaysa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kalfadhigan inaan u hambaliyeeyo oo aan bogaadiyo shacabka Puntland ee u dabaaldegay sanad guurada 28aad maalintii dhaweyto waxaan leeyahay shacabow hambaliyo waxaad ka shaqayseen shacabkaasi waxay u dulqaateen wax badan waxayna ka shaqeeyeen wanaag waxaan rajaynaynaa kuwii nabad ku sii waara horumar sii hiigsada dowladnimadana qaybta weyn ee ay ku leeyihiin ka soo muuqata diyaaliina waxaan rabaa mar kale inaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqo kalfadhigii sideedaad